magaca Gallisoor sida magacaba ka muuqata magacaba laga fahamsan yahay waxay leedahay waxay dad badan uga duwan tahay oo Soomaaliyeed Gallisoor meel Soomaaliyeenta iyo soo dhaweynta iyo sharafta ku fiican sidoo kale deegaankan waa deegaan dad taariikh leh oo Soomaaliya taariikh ku soo jeedaan oo dawladnimada iyo horumarka iyo dalka iyo difaaciisa iyo diinta iyo difaaceeda lagu yaqaano muddo haddii dhibaatada soo maray taariikhdaas iyo wanaaggaas reer Gallisoor lagu yaqaanay wax iskama bedelin waa sideedii waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo magaaladan inay noqoto magaalo saldhig u noqota dib u heshiisiinta galmudug haddii ilaahay yidhaahdo meelaha wax ka jiraan oo dhibaatooyinku ka jireen waan ogahay dadka oo dhan dhinacyada oo dhan nabadda iyo wanaagay u heelan yihiin waase taabagelinaynaa oo gobashii iyo saldhiggii baan ka dhigaynaa Gallisoor haddii ilaahay yidhaahdo reer Gallisoorna tiir dhexaad baa u tihiin waana hubaa inaad dhinac walba aad dadka reer galmudug ugu horeysaan haddii la yidhaahdo waan iswareysanaynaa wixii degmadan horumar ay u baahan tahay oo adeegyada bulshada ah oo baahiya oo ka jirana si gaara ayaan uga faynaa haddii la yidhaahdo